Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka qayb galay oo magaalada Muqdisho uga qayb galay munaasabad lagu soo dhaweynayay markabka baarista sameynaya ee shidaalka Soomaaliya. Munaasabadan ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay madaxda dowlad goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiin kale ka socday dowladda Turkiga kuwaasi oo hogaaminayay wasiirka tamarta iyo shidaalka ee dalkaasi Turkiga. Markabkan ayaa shidaal baaris waxa uu ka bilaabayaa xeebaha Galmudug oo ah qaybaha sida rasmiga ah uu baarista shidaalka uga sameyn doono. Howlgalka markabkan ayaa waxa uu qaadan doonaa muddo 7 bilood ah waxaana si rasmi ah loo soo gabagabeyn doonaa bisha May 2025. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Federaalk ee Soomaaliya Daa'uud Aweys Jaamac oo isla munaasabada ka qayb galayay ayaa waxa uu tilmaamay in ay tahay maanta taariikh fursad weyn ay u tahay dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeedba si uu uga baxo xaaladda adag ee uu dalku ku jiray sanado badan oo dowlad la'aan la ahaa. Waxa uu sheegay in maanta wixii ka dambeeya ay Soomaaliya shidaalkeeda ay la soo bixi doonto wadankuna uu noqon doono wadan qaniya oo isku filan. Daa'uud ayaa waxa uu sheegay in mashruuca sahaminta shidaalka uu wax badan ka bedeli doono mustaqbalka Soomaaliya iyo weliba sawirka guud ee caalamka uu ka haysto Soomaaliya. Wasiirka oo sharaxaad ka bixinayay marxaladda oo mashruucani uu soo maray ayaa waxa uu xusay in heshiiska uu ka bilowday wada shaqaynta rasmiga ah ay wada lahaayeen dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya ayna wada saxiixdeen heshiis lagu baarayo shidaalka Soomaaliya. Markabka sahaminta shidaalka ayaa la filayaa in uu door weyn uu ka qaato dhinaca sahaminta shidaalka badda Soomaaliya taasi oo ah tallaabo muhiim ah oo wax weyn ka tari karta culeysyada dhaqaale ee dalka uu ku jiray muddada dheer. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalk ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isagana ka qayb galay wuxuuna ku dhawaaqay in si dhab ah uu bilowday sahankii iyo geedi socodkii looga bixi lahaa gaajada iyo faqriga. Wuxuu sheegay in alla idankii Soomaaliya ay ka gudbi doonto saboolnimada isla markaana ay maanta bilaabatay hawshii ay uga faa'iideysan lahayd kheyraadka dabiiciga ah ee Ilaahay uu dalkeena dhex dhigay. Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa u mahad celiyay shacabka iyo dowladda Turkiga isaga oo intaa raaciyay in shacabka Soomaaliyeed ay maanta ku faraxsan yihiin in uu taagan yahay dhaqangelinta heshiisyadii aan la galay walaalaheen Turkiga kuwaasi oo ku saabsanaa amniga, dhaqaalaha iyo soo saarista shidaalka kuwaasi oo uu sheegay in ay horseed ay u yihiin dalkeena gaar ahaan inaan isku filnaano dhan walba khaasatan dhinaca dhaqaalaha. Waa hagaag dhageystayaal intaas ayaan ku joojinaynaa warbixintan kooban waxaan falanqeyn doonaa oo la faguri doonaa haddii eebba idmo Soomaalidu sida ay heshiiska ugu noqon karto shidaalka la soo saarayo iyo ka faa'iideysiga kheyraadka annagoo ka sameyn doona wareysiyo iyo warbixino kale oo gaar ah haddii eebba idmo haddii aad ku cusub tahay barahayaga bulshada ku soo biir oo noo follow garee Facebook-ga, YouTube-kana subscribe noo saar. Mahadsanidin.